aada uma santihiin dadka ka soo qayb gala barnaamijka dulqaadka uu sameeyay waqtigoodana uu soo huray barnaamijka laga hadlayo maanta iyo dooda iyo sida macallimiintu ugu soo bandhigeen barnaamij aad u wanaagsan oo ahay ururka waxaan ku dhiirigelinayaa inay barnaamijyada gabdhaha ay qabanayaan ay badiyaan macnaha ummadda bulshadu waxay ka dhismataa waxay tahay qoyska gurigana wuxuu ka soo dhismaa hooyada haddii hooyo wanaagsan la helo ubad wanaagsan ay soo saarto wadan wanaagsan la helaa dawlad wanaagsan la helaa mid xigta waxay tahay gabdhaha in lagu baraarujiyo xishoodka iyo akhlaaqda inay tahay ilbaxnimada alislaam diin xadaara yani islaamka ayaa ah diin xadaara ah qaawinta iyo xishoodka inay ka tagto gabadhu ma ahan yani xadaaradii ilbaxnimo waa wax laga xishoodo laga yaxyaxo xaqiiqatan waa wax laga xumaado markaad aragto gabar yani muslimad ah qoys ka soo baxday Soomaaliyeed boqol muslimnimo sheeganayo TikTok dhex fadhiso hees iska duubayso muuqaalo xun iska duubayso xitaa yani asturkeeda uusan ahayn mid sax yani midka diintii loogu talagalay uusan ka muuqanin sidoo kale waxaan ururka ugu mahadcelinayaa yani barnaamijka sida u soo xuleen ciwaanka ay noo dooreen gabdhaheena wanaagsan ma ahan yani kuwa inta fadhiya waqtigooda soo horay inay kuwaasi ka mid yihiin xaqiiqatan laakiin waxa nagula baahan yahay waxay tahay inaan anaga baraarujino yani adiga waxaad baratay waxaad arkaysaa gabar kaleeto anaga hadda waxa dadka xumaanta waxa isku dhiirgeliyaan anagu qofa waxay soo dhigaysaa xumaan ma sha Allah loo qoraa yani comment ma sha Allah lagu qoro waxay tahay waa fiicanta barmid kaleeto soo duubaysaa laag badan ah helaysaa macnaha meesha ku sii wadaysaa fidnada yani gabarta kaliya ma sameynayso ee bulshada yaa la wado hadaysan bulshada yani soo ceyso commentiga laga dhana akhlaaq daranta meeshan ka bax yani asluub malihid xishoodkiya ka tagtay la dhaho gabadhaas waxa laga yaabaa bari kamaal inaysan muuqaalka soo duubin kii ay shal dhagtane ee ka shalayso laakiin haddii aan ku dhiirigelin ka waran laagti yani commentiga wuxuu sameeyay ninkii la isku dhiirigeliyo qofkaan lagu taageeraa qofka loogu bandhigaa wixii bismaa qofku waa inuu sheegtaa inuu qaldan yahay inuu wuxuu yahay yani wuxuu sameeyay laakiin hadaa dhahdid waa walaashay yani waa dariskayga waa gabar aqaano xumaantina aad ma sha Allah ugu dhahaysid adigna waxaad ka mid tahay qofka fidnada la faafiyay marka waxaan idin leeyahay yani ka dhiirigeliyo gabdhaha inaad يعني حمانتاس ay ka zuulaan barnaamijkan TikTok la dhahaayane xaqiiqatan waligeey ma isticmaal man isticmaali doon laakiin waxaan ka dhiirigeliyaa gabdhaha inay isticmaalin ciwaankan hadda mar dhow ayaan waxaan kala hadalnay culimo badan yani sida barnaamijkaas TikTok gabdhaha looga joojin lahaa xaqiiqatan waa barnaamij aad iyo aad fidno noogu ah wadankeena fidno u ah gabdhaheena fidno u ah iyaga ma dareensano yani gabadhan way bixaysaa badda tagaysaa wiilaysa aqoon ee muuqaal la soo duubaysaa intaas waxay ka raadinaa caanimo صور عن ماذا ما الحين كقش حاليا أوركو يماتسيم سيد برنامج أصدقاء الخير يو برنامج كأنه قبتين عوان كأنه صحولين يصير جارك قبلها مهمة ديوسيان حرجينا يعني قبلها إن بدن وعي جلسان وعي قبلها داد وعي جلسان أمد وعي جلسان والشو توصل وهجاكسان وضن دول النمذي سؤتاجنا نخندون هذول إلى إدمه ما تسند الأمان